dhismayaasha sanadka 2020 ugu qaalisan uguna qiimaha badan ee dunidu ay dhisanayso oo isla sanadkan dhexdiisa la filayo in qandaraaslayaashu ay faraha ka qaadaan oo xarigooda lagaga jarayo magaalooyinka barakoobe ayaan idin haynaa maanta. magaalada ugu horeysa ayaan idin soo qabanayno waa dhismaha laga dhisayo oo la yiraahdo Commercial Bank of Ethiopia Headquarter oo laga wado caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia. wuxuu noqonayaa dhisme banki caalami kan ugu qaalisan oo qaaradda Afrika laga dhisayo, waxaana lagu tilmaamaa guriga awoodda Afrika, waxaana la dhameystirayaa sida la filayo sanadkan dhexdiisa. magaalada Dubai waxaa ka socda dhismaha Dubai Expo, waa 4 kiiloomitir oo isku wareega, wuxuuna noqon doonaa dhisme dalxiis, hoteelo iyo suuqyo caalami ah oo laga dukaamaysto. waxaa la sugayaa in xariga laga jaro bishan Oktoobar ee sanadka 2020. dunidan aynu joogno waa horumarka ugu weyn ee la sameeyo. nashqadeynta waxaa ka qayb qaatay fikrado kala duwan oo la isku soo ururiyay. Bremer Tower waxaa laga wadaa magaalada Melbourne ee dalka Australia. dhismahani wuxuu noqon doonaa suuqa ugu weyn magaaladaas. ogow dhismahani waxa uu eeg yahay galka qalabka muusiga, waxaana sidaasi loogu ekeysiyey sidii uga gaashaanto dabaylaha xilliyada qaar. Alexander Stadium waxaa laga wadaa Las Vegas, waxaana lagu dhisayaa 1.84 bilyan oo dollar, wuxuuna noqon doonaa garoon dhameystiran oo lacagta ugu qaalisan lagu dhiso adduunka. waxa uu yeelan doonaa hoteelo, suuqyo caalami ah, xitaa jaamacado ayuu yeelanayaa, iyadoo sanadkan dhexdiisana la filayo in xariga laga jaro. Central Park Tower waxaa laga wadaa magaalada dhaqaalaha New York. dhismahan waxaa dhisanaya niman bilyaneero waaweyn ka ah New York. dhismahani isagoo ku yaal bartamaha magaalada kama qiimo badna dhismayaasha New York ku yaal, wuxuuna noqonayaa dhisme xajmi qaadkiisu ugu mug weyn yahay magaaladaas. SoFi Stadium oo laga wado Los Angeles waa dhisme garoon ciyaareed hadda ku sii socda in la gabagabeeyo xilliga xagaaga ee dalka Mareykanka, isagoo qaada 70,000 oo qof ayaa la sugayaa in lagu qabto ciyaaraha Olombikada sanadka 2028, waxaana la filayaa dhameystirkiisa inuu noqdo sanadkan 2020. dhismayaasha ugu qaalisan dunida sanadkan oo la dhameystirayo ayaan idiin soo koobay anigoo ah Bashiir Cumar Cali.